kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan waa anigoo ah Kashka Fashion. maanta barnaamijkeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa labada youtuber ee galaangalka weyn ku leh baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka. labadaas oo kala ah Idrisla Cabdi iyo Arimaheena Idrisla Cabdi. markaan maqashaan muuqaalkan wuxuu ekaanayaa muuqaal xiiso leh, dhankiina xiiso aad u weyn ku leh, balse waxaan ku bilaaweynaa muuqaalkeena maanta. Idrisle dad badan ayaa waxay isweydiiyaan Idrisle suu u hadlo iyo inuu kibir ku jiro u maleeyaan, balse arintu taas ma ahan sida u fakaraysaana ma ahan. Idrisla Cabdi dad badan ayaa waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay nin kibir badan, balse arintu sida amoodeen ma ahan. Idrisle waa nin dhalinyaro ah oo daacad ah, waa nin dhalinyaro ah oo qalbi furan, waa nin dhalinyaro ah oo waaniya dhalinyarta Soomaaliyeed dhiirigeliyana xilli kasta, waa nin dhalinyaro ah xataa marmar gala arrimaha siyaasadda isagoo u adkeysan waaya waxyaabaha meesha ka socda kana hadla xaqiiqda dhabta ah. ma ahan Idrisla Cabdi nin runta ka bada badanaa waxay isqabtaan dadka youtuberada isku levelka yihiin, isagoo u soo adeegsada waxyaalo daliil u ah ama cadeemo, isagoo ku karbaasha dhigiisa kale, dhulkana ku jiida, dhulkana ku rafiya. balse muhiimadu taas ma ahan. muhiimadu waxa waaye dad badan ayaa Idrisle waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay nin kibir badan. sababta waxa waaye hadalka Idrisle waa hadal lahjad gooni ah, waxaana looga hadlaa Jigjiga, Somaliland, Puntland ku dar. luuqadaas waa luuqad aad u adag, waa luuqad codkarnimo leh, waa luuqad hadalkeeda uu adag yahay, balse dadka aan luuqadaas aqoon waxay u maleeyaan in qofkaas uu kibir ku jiro. qofkaas qof kale ma ahan, waa ninka ay dadku sheegaan oo reaction ka soo sameeyo. Idrisla lahaa waxaan rabaa marka inaan saaxib fariin kuu sheego. ani waxba kama xishoodo, waxa saxda kuu sheegaa. guriga intaan la dhisin kow aas-aasaa la sameeyaa. ani YouTube ma iska soo galin anoona aqoonin xeerarka iyo ruulka YouTube-yaleeda. YouTube-keygana waxaa soo geliyaa oo unique iyo ani aan leeyahay. muuqaal aday aan leedahay ma la soo geliyo, wax aday aan leedahay lama soo qaato. teeda kale marka aad aniga ay leedahay 24 saac YouTube-kaaga saaxib, waxaas ani waa iskala weynaa. waraadaba dadka waa gashaa, dadka waa caaysaa. haddii lagu caayo ma ogi waxay sansiga ee tahay. dadaa YouTube soo fadhiistay waxay kaa sameeyeen xitaa kasoo qaadba reaction maahana dhahday aflagaado waay, waxa xitaa kasoo qaadba lagu aflagaadeeyay. muhiimadeeda maaha inaad isku dayid inaad YouTube-keeda jabsatid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha walaalahay waxay iga barteen inii oo ma artay aan filmaan usoo kala gudbino. filmaantii hore oo la istumayay xiiso weeyana waayeen waa iska daayay. caawane waxaa reaction aan u badashay filmaantayda aniga. caawane waxaan ka soo hadlayaa nin hani hore ani aan iska kari waayay Idrisla Cabdi. marka nala daawda fiidiyogeen wax weyn maanta iidaadi joogso keero qurux badan iidaadi midaas way faarantahay iidaadi. Idrisla Cabdi waxaan ku leeyahay saaxib iidaadi aku waalate saaxib magac la'aan ku haysan reer waqooyi soo dhumaata, reer waqooyi xuna soo wareeraa tahay, Australia qaxooti ku tahay. magacayga haddaa magac lehen iidaadi aan ku siiyey. arrinkuna sidaas ma aha ee qofkan waa wuxuu u dhashay waana wax rabbaani ah, mana ahan in la dhaho waa qof kibir badan, waayo qofka barshoortida nin ayaa la dhahay. qofaadan aqoon u lahayn khalad hasaarin. ninkaas waa nin dhalinyaro oo wanaagsan, waa nin dhalinyaro oo mataqaana dhiirigeliye ah, waa nin dhalinyaro oo runta ka hadla, waa nin dhalinyaro oo meesha waxay ka khaldan tahay saxa, wixii saxana saxa. taasna waxaan ula jeedaa ma ahan qofka waxaadan ku ogeyn inaad ku tilmaantid. aan kasoo gudbo intaas, ogaadan inuu Idrisle yahay nin dhalinyaro oo wanaagsan oo habdhaqan fiican leh sida naga soo gaartay asxaabtiisa. marka aan u soo gudubno dhankaas iyo
arrimaheena wuxuu ahaan jiray marka hore fanaan leh youtuber waana fanaankii Soomaaliya ugu horeeyay YouTube sameystaa isagoo hadalkiisa ku sheegay inuu YouTube bilaabay muddo hore arrimaheena wuxuu ku jira fanka waqti hore adigana sukunto DJ let's go waxanahay burunto muusigayga wuxuu gaaraa ila Toronto nigga waxa kugu garaacaya koronto nigga wada ima gaaro waxanahay Porto baby girl kali afka igu qabo torto kadibna waxa raba inuu kula tunto si just a baby girl shake your arrimaheena waa YouTuber aad iyo aad u weyn muddooyinka u dambeysana wuxuu ku hoolanaa inuu u wareego inuu duubo dhanka heesaha arrimaheena ma aha YouTuber kaliya ma aha fanaan kaliya waa qof dhiirigeliya bulshada had iyo jeer jecel inay bulshada horumar gaarto waana hadal xaqiiqa uu sheegay isagoo dhahaya dadaalkaaga waa la sameeyaa juhdigaaga waa la sameeyaa waana gaari doontaa arrimaheena ma aha ninkii dadka xasda had iyo jeer wuxuu garab u fidiyaa ganacsatada yararka ama ganacsatada soo kacaysa isagoo ku dhiirigeliya inay ganacsigooda hore u wataan جحنا دا سوقرتين إن طبق أبتي باتيجان خبع فرانا بس كلا والله ما شاء الله عم بقول حتى لا بيتي ورا ما خسكت سكبح ما خسكت دمتك بكتب أيوة ما شاء الله تبارك الله والله ما يوتيوب ده حصل كان كفوتها باتي قلت له عنق هالسن تيرا حتى بقشاي زي لكن تبنا أنا يا أمور ما خلاص أمور سايس الله لكن أمور كأنك معبرين به arrimaheena ma jecla in qofka niyada ka jabto arrimaheena waa YouTuberka kaliya ee Soomaaliya aan lagu dhigin aan la qabsan yacni aan la caayin isagoo taas ku gaaray qalbi wanaagiisa iyo niyad saafigiisa arrimaheena ma aha qof calool xun sida anaga naga soo gaartay sirdoonkeena Malaysia sida ay noo soo sheegeen arrimaheena waa nin laga jecel yahay aagu degan yahay ama xaafaduhu degan yahay gaar ahaan ceelasha biyaha arrimaheena wuxuu leeyahay walaalkiis ka yar أسد حاجيو ولكن كوين عبد الله حاجيو arrimaheena wuxuu jecel yahay walaalkiis ka yar inuu had iyo jeer garab siiyo haddii aad arrimaheena taageertid muuqaalkan like saar waayo waa kugu khasab inaad arrimaheena xil kasta garab istaagtid isagoo jecel horumarkaaga maxaad u diidaysaa horumarkiisa arrimaheena wuxuu hadda haystaa 94,000 oo subscriber laakiin positionka hadda uu taagan yahay ma u qalmo wuxuu u qalmaa inta in ka sareysa waayo ma ahan youtuberada qaar ee dadka reactionka ka bixiya kuna dhaga dumarkeena sharafta leh arrimaheena waa nin dhalinyaro oo jecleen inuu dadka wax ka sheego inuu dadka caayo xataa arrimaheena marmarka qaar hadaladiisa dhiirigelinta waxa kamida لكن هذه خوف كاس معركة التلفزيون أقاض لها سنقول لها يعني خوف كاس وكل وقف إسقى نيد كدلن خوف كدون نيد كدلن يعني وحوس كده يا خوف كلا إنه نيد كدلن وحال كان دردار ناسينا يا دتك ربا إنه واحد سمستان أم هدف له إسبيشالي دتك يوتيوب ليده وربا إنه واحد سمستان يوتيوب أم وحياه منو عس هذا ليده هنا عرفت إنه هرمرك جارتد معناه هرمرك كجاريسد معنا إنه خوف كوج عابين كرام إنه خوف قرب سيو خوف واحد أول بعد تطلع أو سوبر دكتور حلقة عن الجوجو خوف ما أنت متجرت أو بحرب كو خبنا أنا كشيد خصب مع خوف كانوا دخلوا كو قرب استاجو إنه معركة وقت يسوق bixiyo waxa muhiim ah qofka inuu talooyin ku siiyo markaan talooyin ku siinaa talada ugu horeysa ku siinaa waxay tahay adaarabtid inaad wax samaysid number 1 hadaf leedahay hadafkaaga haduu qurux badan yahay is dhehaysid wax waa ka keeni kartaa hore u soco talaabada qaaday qaad hore u soco waxa aad damacsantaa hadii ay tahay waxa aad nafsadaada halis gelin kara ama khatar ama dhibaato kale ku keeni karto ha sameeynin ka har raadi waxyaabo aad sameey kartid oo dhibaato kaaga iman karin talada labaad waxay tahay ha dhageysanin qof wax ku diidan markaa ku dhaay macnaheeda ma ahan yani ديد ما forever ما أهم ده تقارب حركة ساعة كل هاي هذا يعني وحكو ديدن أو وحكو أقولين أنا جرته وجيك يعني كاتسون أنا وحكو أقولين عمل لكن قلب جود جوده وح مكان أقوله ده كاس عمل هبل الساحب كهر تنسد حد مهم واحد وقت جاك كفاية ديسو يعني وقت أهيستي أو وحكو سميسن كرتي كسميسو أرمينا مجعله in ay dadku gadaal u noqdaan balse wuxuu jecel yahay qof walba hadafkiisa inuu gaaro dunidana u jeedid waxay leedahay
wejiyo fara badan adigoo la kulmi kara caqabado aad iyo aad u adag balse waxaa laga yaabaa inay dadkaaga kugu taageereen hadafkaad nolosha ka leedahay laakiinse wax hadafkaaga waa la wataa adigoo wax farsamaysanaya balse ma ahan inaad hal mar waxaaga kusoo shaacbaxdid waxaa loo baahan yahay niyad sami iyo qalbi saafiya adigoo wax xalinaya hadafkaaga hadduu ku keenayo dhibaato fadlan ha ku degdegin arrimaheena waa youtuberka keliya ee isdhihi karo waa kan ugu qalbiga furan soomaalida markiis youtuber shakhsi ahaan loo hadlo waayo ma ahan nin dadka reaction ka bixiya ma ahan nin dadka caaya ma ahan nin dadka ku dhaga ma ahan nin dadka qabsada isagoo hadii jeer ka fiiriya wax kasta dhanka wanaaga ah faa'iideysan kartaa 2 daqiiqo wax walba ku qaban kartaa qof aad sadaqsiin kartaa qof hadal wanaagsan oo sheegi kartaa qof aad maaragtay caawin kartaa qof maaragtay oo meel bohol ku jira ka celin kartaa intaas dhan waa isku mid leeyahay 2 daqiiqo aad maaragtay oo ahsan ay sameeysid waqti waa sidaas darteeda waqtiga ka faa'iideyso waqtiga ka faa'iideyso ma aha wax kale haddaba haddii aad youtuber tahay ama aad howl kale ku jirtid oo social media fadlan waxaa kaa codsanayaa inaad arrimaheena ku dayatid arrimaheena wuxuu jecel yahay had iyo jeer inuu soo bandhigo waxyaalo bulshadu jeclaadaan sida vlog sida challenge isagoo marmarka qaar sameeya challengeyo ugu talagalay luuqadeena hooyo arrimaheena ma jecla badanaa inuu waxyaalo bila micno dara soo sameeyo balse wuxuu jecel yahay wax nadiif ah bulshadu jeclaato inuu soo sameeyo haddaba haddaad faanis arrimaheena ama taageer arrimaheena aad tahay waxaa si sharaf leh lagaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid janaalka subscribe saartid fideogana share garaysid xataa waxaa laga yaabaa adoo taageero u ahaa arrimaheena inaad dhowr qof share gareynta uu gaaro adigana markaad aad tartamka toos ugu soo dhacdid oo laga yaabo inaad lacagta ku guuleysatid waad fahanteen aan filayaa taasna waxaan u leeyahay hadda waxa tartanka aad iyo aad usoo tarmaya dadka ku tartamaya barnaamijyadeena iyagoo hadda sii marayaan 105 qof oo wadamadan soo sheegnay kala joogaan balse waxaa naga maqala inaad tartanku uu wali furan yahay ilaa dhamaadka bishan barnaamijkan waxaa la socodsiinaya Kashka Fashion waa bahda Kashka Fashion oo idile markasta waxa fiican wax walba in danka wanaaga laga fiiriyo dunidana waxa yani waxa aad xumaan ku weyd waxaad wanaag ku weydid xumaan ma ku helaysid sababtoo waxa wax kasta wanaaga ayaa lagu raadiyaa waxaad wanaag ku weydina xumaan ma ku helaysid markasta waxa fiican be happy dunidana waxay joogtid ba wax yar arimeena hadalkii dardaaranka oo xil kasta noo reebo waxa waay waqtiga ka faa'iideyso waqtigaaga 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 ka faa'iideyso taasna wax muhiim ah yani marka lagu leeyahay waqtiga ka faa'iideyso waxa waaye يعني وقتها كفايديس مركا قدا معناها maahan in maaragtay si walba aad waqtigaaga u dayacaysid waqtigaaga kafaa'ideyso yani waxay ka macna tahay kasir hada jaanis heshid maalintii aad mashquulsan tahay hada shaqaysid hada wax baranaysid yani hada tahay qof oo mashquul badan hada heshid 2 daqiiqo وكفايدeysan kartaa 2 daqiiqo wax walba ku qaban kartaa qof aad sadaqsiin kartaa qof hadal wanaagsan oo sheegi kartaa qof maaragtay caawin kartaa qof maaragtay oo meel bohol ku jira ka celin kartaa intaas dhan waa isku mid leeyahay 2 daqiiqo hada maaragtay oo ahsan ay sameeysid waqti waa waa tahay barnaamijka maanta waxaan la socodsiinaya aniga waa Kashka Fashion inta barnaamij la mid ku kulmi doono waa bahda Kashka Fashion oo idin leh nabadino khair bashbash iyo barwaaqo muuqaalka xiga ayaa noo balanay